waxaan rabaa hadda inaan u yeero kolley gabar dhallinyaradeenna inta social media ku jirta aad u garanayaan marar badan wacdi badan iyo guwaawin fara badan iyo waxyaabo badan oo wanaaga social media mar walba maaragtay dadka ugu firfircoona waxaan rabaa inaan u yeero Amaal Cabdullaahi fadlan Amaal Cabdullaahi leela soo dhaweeyo sacab lagu soo dhaweeyo soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتا لابد قبل ده هريان عاوم مش كهلا فهمتين. دمعتي وأنا سلام يا ورتا أمال عبد الله الإرادة قبل ده نصره بباري نوصر ما شاء الله. وأنا لا إنباد كريه لكن بوسنا لما بنايمين. أنا على مرة بدن شراك كمان خلص كوي مادو. قبل هواين بوس لو بنايا وين أنا بناي سنة نقول تاس حق بنو لنا هاي ما شاء الله runtii waxaan ka hadlaynaa horta caawa calamada midoobay alxamdulillaah calama caawa meesha ku midoobay inkastoo Soomaalidu iska calamo badan tahay anagu laakiin dumar haddaan nahay we have a complaint wali calan inta calan ordaya wali calan gabdhuhu maaragtay loogu magac daray mali ma soo bixin so we're hoping gabdhaheena inay calankeena samaysano insha Allah waan gaaraynaa markaan hore laakiin boosaskan ku banaynayna marka hore inaan boosas banaysano inaynu anagu banaysano weeyaan sidaad ogtihiinba gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato walba oo dhacda ama jigjigaha ka dhacdo ama Djibouti ka dhacdo ama Hargeysa ka dhacdo dhibaatadu mar walba waxay soo gaadhaa effect garaysaa gabdhaha ilmaha dadkaas ayay soo gaadhaa ama ha noqoto dhaawac ama ha noqoto dhimasho ama ha noqoto qax ama ha noqoto qarax marka dhibaatada mar walba dumarka iyo ilmaha ayay soo gaadhaa laakiin haddana waxay oo soo gaadhaa dhibaatada dhacaysa ama qax ha noqdo ama wax kale noqoto ee wiilashu ku dhimanayaan abayaashu ku dhimanayaan waynu aragnay hadda usbuuc la soo dhaafay nin baa la dilay 12 ilmood ka tigay laba xaas inkastoo Sheikh Ahmed uu ka hadlayay xaasaska iyo nimanka laakiin haddana anagu halkan ma sha Allah Sheikh Ahmed shibila horta aad baan ku salaamayaa adeer waxaana bahay oo warar igu soo gaareen inaad misaajidka dhisisid buu hoodle misaajidka boos baan uga baahanay gabdhuhu ku tukadaan insha Allah that's a note waa gabdhuhu misaajidkaas waxaan tagay Hargeysa xaajiyad baan horta xajka igu cusub last year xajkaan tagay you have a new title insha Allah inkastoo oo xajka markaan taagnaa aan duca khaas aan u bariyay wiil xaafadda soo galay oo ku ilaahay kaas dimaasho ma rabo inaan u noqdo ka ilaahayna markii waa naga buriyay oo waxa la yiraahdaa afhayanimada iyo iska dhaafo xajkaaga oo waxaan ku yiri anigu xajkayga waa la soo aqbalay baan u nin baa u soo tukaday in ilaahay xaafadda ka fogeeyo oo markiiba oo naga tagay wafad marka walaalayaal gabdhaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed madasha jooga insha Allah caawo midnimo ayaa ka dhacday caawo dad walaalahan ku midoobay Sheikh Google baa nala jooga horta inkastoo aan sheekooyinkan ka maqnaa oo de Soomaali galbeed iyo arrimaha aan aad ugu fiirsan jirnay laakiin caawo waxaan galiyay Google Sheikh Google waxaan galiyay DDS kaas oo in badan igu soo dhacday aan arkay waa dawlad deegaanka dawladda Ethiopia oo loo soo gaabiyay yes Ethiopia taas hadda laga bilaabo DDS baaban hayba maxaa yeelay ta kale ee ah on LF waxaa loo soo gaabinayay ogaadeen National Liberation Front laakiin markaan fiiriyay so ma sha Allah ogaadeen kaliya ma ahane intaas oo qabiil baa deegaankan waxaan u baahanahay inaan midowno waxaan u baahanahay inaan isku nimaadno waxaan u baahanahay midnimadeena inaan ka midowno iyo maaragtay gacmo wada jir bay wax ku jaraan meel li jirin gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka walaalayaal iscafis dalbada insha Allah walaalaynu noqono rag iyo dumarba waa inaynu ma sha Allah caaw meeshan wax ka dhacayo midowga ah iyo isku imaanshaha dadka Soomaaliyeed wada dhashay inaynu ma sha Allah aynu aad halka ka sii wadna hadii lahayd ma nasro waxay ka hadlaysaa dhibaatadii dhacday ee maanta wiilka iyo qaraxyadan iyo waxyaabaha personal effect
السلام عليكم. دمان dadka meeshaan fadhiya waan salaamay insha Allah salaam ka bacdi. I think dadkii horta meeshaan inta ugu badan ee fadhido waa dad dhalinyaro ah ee ku koray qurbaha. meesha aad joogno waa dareensanahay marka jidka mareyno waxaan nahay qof madow jidka marayo waxaa tahay qof muslim jidka marayo oo mid duwanid ninka cadaanka ah hebel iyo reer hebel kuma yaqaan anaga inaan iskala saarno Soomaali anagoo one ah waa wax aan u baahanahay inaan ka gudubno 2018 qabiil iyo kala daadsanaan haday wax tarayso 30 sano ka bacdi same conversation ma naheesan lahayn waxaan nahay dadkii laga xaday wadankooda because waxa ku kornay qurbo waxaan nahay dad maanta luuqadoodii toos aan uga hadli karin dad dhalayo ilmo dhahayo I am from America I am from China I am from Europe right waxaan nahay dad u baahan inay ka fakaraan wadankoodii soo dhisan lahaayeen say isbitaal u geysan lahaayeen say waxbarasho u geysan lahaayeen